subaxdii markuu roob ku doo mayaygu raadiyo reexaan udgooniyo adoo rucub ka soo toosay dhulka oo tiga diirax tiri raarka sare joogto oo jaanta aad rogo tidhaa raysku daba yaallo quruxdooda buuraha rakada ubaxu rooshaamo qoraxdana daruur lagu rakibay raranka ka dahday buurama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي على سعود وهذا مركل يوم وقال عصب ما أنت واحد شغلنا برتمها جامعة عمود أو كتعلق قبل كأوضل مجال مدحضة بورما جامعة أو كم إذا جامعة وقت مثل سومالان أيام ما أنت بوقني ونقول نسميك وجوه الرئيسان بوقني سعود وهذا صاحبي يلا والله حتى لهم عصب تسوي كريم صار دتك مجال بورما خلوق قني مجال إنه سدوي وحكم إذا يونس أو كم إذا دنيا بورما يونس فدو يونس oo kamid ah dhalinyarada magaalada Boorama ayaa kamid dadka kula kulnay Yoonis soo dhaw maxaa leedahay maanta alxamdulillah marka waan islaameed hadda marka meesha Boorama jaamacadda jaamacadda waxa kan iyo qayb kale banaan xagga ka ku taala qaybta injineeriga badan tahay waxaan ku leeyahay marna ku soo dhaw ku leeyahay qoraxdana daruur lagu rakibay raranka ka dahday Boorama riyo waxaanu hayso qalbigu ila riyaaqaba inaan joogo rugihii cilmiga. saaxiib yaal saad u jeedaan hadda waxaan taaganahay mid kamid ah dhismayaasha qadiimka ee jaamacaddan Camud ay leedahay jaamacaddan oo kamid ah jaamacadaha ugu qadiimsan Soomaaliland. saaxiib yaal waxaan hadda taaganahay meel kamid ah goobaha ugu caansan jaamacaddan Camud oo ah loogadan qof kasta jaamacaddan Camud soo booqdana loogadan sawiro aqasab inuu ku galo annaguna maanta waxaan kamid ahayn dadkii soo booqday ee waqti ku qaatay ee sawirada ku galay loogadan ay caan ku tahay jaamacadda Camud ee ku taala magaalada Boorama. haddii aad maran soo booqato jaamacaddan waa qasab inaad sawir ku gasho goobtan oo ah goobta ugu caansan jaamacadda Camud oo ah loogadan dhabarkay ku taala. saaxiib yaal waxaan ku suganahay jaamacadda Camud mid kamid ah kambasyada sida arkaysaan jaamacadda Camud dhexdeeda ku sugan muuqaalkan waxa igu helinayay oo aan safarkan igu helinayay inaan saaxiibna Cabdinajiib leeyahay Cabdinajiib soo dhaw saaxiib Cabdinajiib oo kamid ah dhalinyarada ninka aan soconay safarkan igu helinayay soo dhaw saaxiib maxaa leedahay asxaabta maanta waxaan joognaa magaaladii Boorama jaamacadda Camud baan kasii joognaa maxaa leedahay soo dhaw horta saaxiib maanta waxaan soo galay safar qiimo badan kaasoo ku soo booqanay gobolka Awdal magaalada Boorama iyo gaar ahaan jaamacadda Camud University waa safar waxaan oran karaa runtii aad u qiimo badan aynu wad garan kartaa ilaa xag nooga nimi maadaama aan safarka inta laga soo galnay jaamacadda Camud joogno bal dareenkaaga maanta maxaad ku qiimeyn lahayd dareenkaaga hor dareenkaygu wallahi aad iyo aad buu fiican maadaama joogo goobta aqoonta goobtii waxbarashada gobolkii aqoonta waliba beedkii aqoonta aan dhex taaganay hadda iminka waxaan leeyahay ugu xidhnaada intii hore noola joogtana aad iyo aad buu mahadsantiin wixii dambe nagu soo biiray imka na daawanayna fadlan nagu xidhmo subscribe-na dheh nala soco insha Allah muuqaalo kale far badan waan idin soo wadnaa oo idin ka soo wadno jaamacadda Camud qaybo kale kamid ah magaalada Boorama waxaas oo dhammaad soo duubana insha Allah. subaxdii markuu roob ku doo mayaygu raadiyo reexaan udgooniyo adoo rucub ka soo toosay dhulka oo. saaxiib yaal waxaan joognaa mid kamid ah hoteelada ugu quruxda badan ee ku yaala magaalada Boorama hoteelkan oo magaciisa loo yaqaano Rais Hotel waa mid kamid ah hoteelada ugu bilicda quruxda badan magaalada Boorama ee muuqaalkiisa iyo quruxdiisa nala daawada. Boorama inay raaxataa la isku wada raaciye riyo waxaanu hayso qalbigu ila riyaaqaba inaan joogo rugihii cilmiga runi ideeqsiisay
magacaygu waa Amiin Shabcaan Xasan oo Boorama ku dhashay oon iskula kulannay hoteelka Rays. hoteelka Rays inta badan dadka dhalinyaradu way yimaadaan ujeedka way yimaadaan maxay tahay Dee calaftoon ma laha ma garanaysaa buu soo buuxsamaya gabdhayo wiilbe yaa anna dadka ma kamid ahoo niman ayaa aduu sababta u timaada marka maxay tahay dee inaad suuraan ku galan fiidiyo ku qarxisto inaad sawiraan uga soo timaaday haa jawigiisa ka waran wallaahi lagama sheekeyn karo dee jawigiisa Rays Hotel hoteelada ku yaala magaalada muxuu kaga duwan yahay baa la odhan karaa Rays Hotel dee wuu ka qurux badan yahay uuna ka fiican yahay dee suuraanta lagu galan lama qarxaanba waa laga yaabay saaxiib marka hore soo dhawow magacaaga ku bilaabaya maanta waxaan joognaa mid ka mid ah hoteelada magaalada Boorama ku yaala hoteelkan oo magaciisa la yidhaahdo Rays inta badan dadku u yimaadaan ujeedka ugu weyna dadku u yimaadaan maxaad u malaynaysaa inta horta waan dhowahay waa alqaali magacayguna waxaa dhahay maxamed axmed xasan horta hoteelkan wallaahi waa hoteelada Boorama wuxuu ka mid yahay madaragtay ugu quruxda badan leh waxaana loo yimaadaa waa sawirro iyo dee dalxiisyaba reer Boorama keliyaba iska daaya dad baa uga yimaada meelaha oo anigu aan ka mid aho dee Hargeysa oo kale garanaysaa marka waa hoteelada waxaan odhan karayaa dee madaragtay dadka shucuurtoodii soo jiitay oo aad dee u qurux badanaadiyo sawirro lagu geli karayo magaratay marka waa kaas ahay marka maxaa la odhan karaa hoteelada kale magaalada ku yaala uu kaga duwan yahay dee horta wuxuu kaga duwan yahay wallaahi anigu kuma qeexi karaya ma garanaysaa laakiin quruxdaas iyo wuxuu kaga duwan yahay waan filayaa dee madaragtay shucuubta dadka iyo waxa uu soo jiitay ma garanaysaa marka waxaan odhan karayaa anigu dee maxamed ahaan aad buu u qurux badan yahay odhan karayaa markii koowaad timaadaa mise marar kale oo timaadaa jira way jiraan marar kale oo aan yimaado dee aan sawirro ku galo fiidiyo ku duubo ma garanaysaa marka waa kaa aad iyo aad baad mahadsantahay